asxaabta oo mar kale Ayuub Show ku soo dhawaada maanta waxaan rabaa inaad ila eegtaan mid ka mid ah airportada ugu mashquulka badan caalamka uguna weyn oo dhawaan socdaal ku soo maray kaasi oo ah airportka magaalada Dubai. haddaba waxaan rabaa inaad ila eegtaan sida airportkan uu bedelay nolosha iyo dhaqaalaha Imaaradda Dubai iyo guud ahaan badalka Imaaraadka Carabta. hadda waxaan soo gaadhnay magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta waxaan joogi doonaa saacado kooban halkan oo ah mid ka mid ah madaarada ugu weyn caalamka. madaarkan magaalada Dubai ayaa mid ay sameysay Imaaradda Dubai isla markaasina ah mid door weyn ka qaata dhaqaalaha iyo shaqo abuurka Dubai. markaad gudaha u gashid waxaad arkaysaa sida loo nashqadeeyay oo ah mid cajiib ah. shaqaalaha ka shaqeynaya gudaha airportkan ayaa kumanaan isugu jira ajaanib iyo muwaadiniin u dhalatay Imaaraadka Carabta. sanad kasta waxaa halkan ka duula in ka badan malaayiin rakaab ah oo u kala socda guud ahaan qaybaha kala duwan ee dunida. madaarkan Dubai ayaa waxaa maalin kasta duulimaadyo ka sameeya kumanaan diyaar. airportkan magaalada Dubai ayaa waxa uu qayb weyn ka yahay dhaqaalaha Imaaradda Dubai. sidoo kale airportkan ayaa waxa uu qayb ka yahay liiska airportada ugu mashquulka badan caalamka uguna weyn. sidoo kale airportkan ayaa dhaqaalaha guud ahaan sanadkii soo saaray waxa uu dhan yahay $26.7 bilyan, taasi oo noqonaysa 26.7 bilyan oo dollarka Mareykanka. airportka magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale waxa uu noqonayaa airportka lixaad ee ugu weyn guud ahaan caalamka marka loo eego dhanka diyaaradaha iyo alaabaha kaargooga ee sanadkii amaba bilihii ka baxa garoonkan. dhaqaalaha iyo shaqada ka socota gudaha airportkan Dubai ayaa waxa ay ka badan tahay dhaqaalaha yaala deegaano fara badan oo dunida ah. hadda waxaa soo gabagaboobay safarkaygii koobnaa ee saacadaha qaatay ee mid ka mid ah madaarada dunida ugu weyn kaasi oo ah madaarka Dubai. ku xirnaa Ayuub Show lana socod muuqaal cusub.